haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. Sheekadani waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Dumi. Dumi waxay ku nooleed dalka Netherland. Dumi markasta waxay ku fikri jirtay inay noqoto kalkaaliye. Nasiib wanaag, Dumi 2020 February waxay heshay shaqo kalkaaliyenimo. Shaqadaasina waxay ka heshay hotel ku yaalo Maastricht wuxuu ahaa meel weyn oo lagu daryeelo dadka waayeelada. Sidoo kalena way degnaayeen Maastricht dad caadi ah oo meesha iska imaaday, laakiin meesha waxaa u badnaa dad duqooshin ah. Run ahaantii Maastricht wuxuu ka koobnaa 3 dabaq oo aad iyo aad u waaweyn. Calaa dabaqiina wuxuu ka koobnaa 30 qol wax ka badan. Qolkiiba waxaa ku yaalo musqul iyo 1 qol oo jiif ah. Dumi markay imaatay hotelka Maastricht, dhibaato ayaa la kulantay maalinkii ugu horeysay ee imaaday Maastricht. Waxay aragtay nin duq ah ee hadda kahor kalkaaliye u ahaa jirtay oo meedkiisa la sii wado ambulance-na la gelinayo. Ninkaasna information dheeraad ah markii laga qaaday iyo wixiisa la dabagalay, waxaa la ogaaday in odaygaas uu waalnaa, markastana dhihi jiray armaajada qof ayaa soo gargaraacayo iyadoona armaajada qofna ku jirin. Muddo kadib, qolkii odaygii ka dhintay waxaa soo degay oday labaad oo magaciisa la yiraahdo Sheikh. Wuxuu ahaa qof aad u furfuran, sidoo kalena wuxuu aad u jeclaa music inuu dhegeysto. Wuxuu kaloona jeclaa cuntada iyo macmacaanka. Markasta ee Dumi qolkiisa ugu soo booqato, waxay arki jirtay Sheikh asigoo music iska dhegeysanaya. Muddo Mr. Sheikh sidaas ayuu iskaga faraxsanaa. Muddo kadib, Dumi waxay aragtay Mr. Sheikh oo aad u caatoobay, cunto kastoo loo keenay cunaynin. Dumi arrin kale oo la yaabto wuxuu ahaa Sheikh markasta wuxuu la kaftami jiray kalkaalisooyinka iyo odayaasha meesha degan. Laakiin maalinkaas wixii ka dambeeyay shib ayuu noqday. Markastana wuxuu farta ku taagi jiray armaajada waa lagu jiraa ayuuna dhihi jiray. Dumi waxay go'aansatay in maskaxdiisa tijaabiyaan dhakhaatiirka meesha joogaan. Kadib odaygii markii maskaxdiisa la tijaabiyay, waxaa la ogaaday in uu caafimaad qabo oo ninkan waalneyn. Maalinkii xigtay asigoo qaylinaya ayay Dumi soo carartay, wayna u imaaday qolkiisa ayay ugu imaaday. Sheikh wuxuu u tilmaamay armaajada, wuxuuna u sheegay armaajadan inuu ka soo baxay bahal aad iyo aad u weyn. Sidoo kalena Sheikh wuxuu dhahay bahalkaas wuxuu doonayay inuu aniga cuno. Bahal weyn ayuu ahaa, cidii dhaadheerna wuu lahaa, indho madowna wuu lahaa, ilkiisana waxay ahaayeen sida yaxaaskii oo kale. Oo ii soo dhawaaday asigoo cuni rabo ayaa idin soo qayliyay. Hadda markii ay idin soo qayliyeen meel uu ka baxay ma garanayo. Mr. Sheikh bahalkaas wuxuu u sheegay cunto kasta oo loo keeno in uu asiga siiyo, haddii kale asiga inuu cunayo ayuu u sheegay. Dumi arrinkaas aad ayay ula yaabtay, isla markiina waxay u wacday kalkaaliyayaashii joogay meesha. Kadibna waxaa la fiiriyay armaajada, waxaana laga waayay qof joogo meeshaas ama bahal meesha ku jiro. Muddo kadib waxay arkeen kalkaalisooyinkii Mr. Sheikh oo aad u garaafaysan, aadna u dhibaataysan, korkiisa dhamna wada dhiigayo. Run ahaantii aad ayay ula yaabeen Mr. Sheikh waxa ku dhacayo. Cunto kastoo Mr. Sheikh loo soo dhiibo uu soo qaadi jiray armaajada horteeda ayuuna dhigi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa ka soo qaatay kalkaalisooyinka kalkaaliso ka mid ah cuntadii. Dib Mr. Sheikh wuxuu dhahay oogi ayaa idilayo haddii aad cuntadan qaado, marka waa ku baryaa ha iga qaadin. Dumina wax kastoo meesha ka dhacayo way fiirsanaysay, waxaana la yaabaneed oogigan la sheegayo qofka uu yahay. Mr. Sheikh muddo 2
usbuuc ah ayuu sidan u dhibaateysnaa. Dumi maalmaha ka mid ah iyadoo booqanayso beeshinada beeshin ka mid ah ayay waxay maqashay Mr. Rick oo aad u qaylinayo. aad ayaan u naxday wayna soo carartay. Dumi si degdeg ah ayay qolkiisa ku imaaday, albaabka ayayna si xawli ah kusoo furtay. Dumi waxay aragtay isku soo socdo Mr. Rick. Mr. Rickna wuxuu haystay dhuunta iyo caloosha, aad ayuuna isku xoqay ilaa jirkiisa uu ka imaado dhiig. Mr. Rick heer wuxuu gaaray dhiiggiisa xataa ka soo daato sariirta. Sidoo kale dhiigga wuxuu ku socday armaajada xaggeeda. aad ayay u naxday Dumi, isla markiina waxay wacday ambulance. sidoo kalena gacmaha ayay ka qabatay si uu dhiigbax u dhiman. kadib waxaa imaaday ambulance-tii. Mr. Rick aad iyo aad ayuu u qaylinayay asigoo aad u xanuunsan oo xaaladiisna adag tahay ayaa waxaa loo waday isbitaalka. nasiib xumo muddo kadib waxaa noo soo sheegay inuu Mr. Rick uu geeriyooday. mar labaad ayaa la soo hagaajiyey qolkii 106. Dumi waxay aragtay beeshin cusub oo taagan qolka 306. kadib Dumi habartii waayeesheed ayay la hadashay waxaana dhahday maxaa halkan la taagan tahay. habartii duqda ahayd waxay dhahday qolkani waxaa degnaa nin magaciisa la yiraahdo Oogina qofna uma ogolo in qolkiisa qof kale la soo dejiyo. qofkii qolkiisa soo dego muddo kadib asigoo mid ah ayaa laga soo bixinayaa. run ahaantii Dumi arrinkaas aad iyo aad ayay uga naxday. muddo kadib habartii duqda ahayd ayaa degday qolkii 306. kadib il gaar ah ayay ku fiiri jirtay Dumi wax habartan ay sameynayso. waxay aragtay maalin habartii duqda ahayd oo cuntada armaajada horteeda dhigtay kaligeedna isla hadlayso. Dumi arrinkaas way la yaabtay. sidoo kalena hoteelkii oo dhan waa la iswar dhaafsaday in arrinkan uu ka jiro. arrinka dadka aad u sii cabsi gelisa ayaa wuxuu ahaa ditoorkii meesha joogay ayaa waxaa soo weeraray hooskaasina wuxuu yahay inuu qof bini'aadan yahay iyo in kale lama sheegi karo. fadlan ha hilmaamin inaad videoga like garayso.